kusoo dhawaada khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo channelka waa Liibaan Caraale dhammaan inta channelka soo gashay aad iyo aad ayaan idin salaamay waxaan maanta jeclaystay in aan idinla wadaago muuqaal aan kaga faaloonayo mikrofoonka caanka ah Rode Boardmiga oo ah mikrofoon ay soo saarto shirkad Australian ah waa mikrofoon aad iyo aad loo isticmaalo waxaana adeegsada dad badan oo sameeya podcastiyada ama YouTuber badan ee aad iyo aad u isticmaala waayadan dambe aad iyo aad ay uga soo muuqday meelaha social media hadii ay tahay maxaa la yiraahdaa in dadka sameeya podcastiyada waxa arkaysaa idaacadaha warbaahinada caanka adduunka inay aad iyo aad uga soo muuqdo mikrofoonkan waxa kale oo arkaysaa in dad badan oo waayadan dambe aad iyo aad u isticmaalaya in shirkadan Rode la yiraahdo mikrofonadeeda waliba mikrofoonkan hadda horteeda ka muuqdo oo aad iyo aad ay u isticmaalaan maxaa la yiraahdaa dad badan waana mikrofoon qiimo jaban oo qof walba uu awoodi karo inuu soo gato waa less than 100 waa $100 wax ka yar marka waxaan jeclaystay in aan maanta faala ka bixiyo mikrofoonkan waxyaabaha uu ku fiican yahay oo dhan in aan maanta idin la wadaago maadaama in muddo ah aan soo isticmaalayay marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa horta waa unpackaging ayaan sameynaynaa baakada uu ku yimaado mikrofoonka baakadan cad ayuu ku yimaadaa oo midabkeeda cad yahay sida muuqaalka idinkaga muuqdo waa si fiican ayaa loo soo baakadeeyay waxyaabaha ugu horeeya indhaha ku dhacayna waxaa kamid ah shirkadda Rode astaanteeda ama maxaa la yiraahdaa sumadeeda Rode oo ah astaan afheed sida Soomaalida ay tiraahdo markii baakada la furo markii ugu horeysa waxaad arkaysaa waraaqihii ku qornaa ama ku yaalay qaabkii loo isticmaali lahaa mikrofoonka waxyaabaha qofka laga rabo inuu ka taxadaro waxyaabaha looga baahan yahay waxaas oo dhan ay ku qornaayeen marka haddaan meel iska dhigno kuwaas waxaa arkaysaa hadda waa mikrofonkii oo hortaada ka soo muuqdo waxyaabaha ugu horeeya oo aad maxana aad iyo aad la yaabiso waxa kamid ah mikrofonka marka gacantaada ku qabato culeyska uu leeyahay culaabta ama culeyska uu leeyahay waa mikrofon aad iyo aad u culus sida waraaqahooda maxaa la yiraahdaa ama ay ku soo qoreen website-kooda shirkadda Rode mikrofonkan waxa uu culeyskiisa yahay 937 gram oo almost ku dhawaad waxa waaye 1 kiilo oo gram marka mikrofon fudud ma ahan ama maxaa la yiraahdaa mikrofon waxa waaye almost aad iyo aad u culus mikrofonada kale marka loo fiiriyo markan hadda aan u gudubno qaab dhismeedka mikrofonka ama designka ama naqshada mikrofonka waxa sida maxaa la yiraahdaa muuqaalka idinkaga muuqdo qaybta hore dhan ee mikrofonka ama qaybta looga hadlayo macnaha codka meesha lagu aadinayo maxaa la afka oo dhan ilaa iyo qaybta maxaa ugu dambaysa oo dhan uu yahay isheeg bir marka qaab dhismeedka ama maxaa la yiraahdaa designka mikrofonka meeshaas ayaan uga gudbaynaa waa mikrofon aad iyo aad quality-giisa aad iyo aad u fiican haddii aan u gudubno marka tayada codka mikrofonkan uu soo saaro waxa waaye markii aad u fiirsato waa mikrofon codka ka dhigaya flat aanan ka dhigaynin cod guuxayo ama maxaa la yiraahdaa aan ku daraynin wax la yiraahdo bass iyo wixii lamid ah si natural ah codkaaga ayuu u soo saarayaa wuxuu hoos u dhigayaa maxaa la yiraahdaa toonka macnaha guuxa yani wuxuu ka dhigayaa qof walba oo fahmi karaan oo yani easy ah yani la fahmi kara oo ka dhigaya maxaa la erayadii ama maxaa la yiraahdaa cod flat ah oo yani aan lahayn maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo warm tone aan lahayn sida hadda mikrofonada badankooda waxa arkaysaa mikrofono sida hadda mikrofonka SM7B oo mikrofon caan ah raadiyaasha badan ay isticmaalaan waxa kamid ah mikrofonada aadka ay u isticmaalaan raadiyaasha ama telefishinada waxa arkaysaa codkii wuxuu ka dhigayaa cod guux leh si lacna loo qurxiyo ma fahamtid marka mikrofonkan wuxuu ku fiican yahay codkaaga wuxuu ka dhigayaa flat oo cod aan guuxaas iyo waxaas lahayn maxaa la yiraahdaa basskaas iyo waxaas aan lahayn waa mikrofon aan dhihi karo aniga codkayga marka aan ku fiiriyay waa mikrofon aan dhihi karo aniga codkayga aad iyo aad ugu weyn yahay oo cod waaweyn ayaan leeyahay marka codkayga aad iyo aad ugu fiican yahay sababtoo uu yareynayaa guuxaas iyo maxaa la yiraahdaa weyninkaas wuxuu ka dhigayaa flat sida daraadeed ayaan marka mikrofonkan u soo gatay markii aan soo gadanayay marka haddii aan u gudubno mid kale aan ka hilmaamo waxa kamid ah mikrofonka wuxuu leeyahay gudaha wuxuu ku leeyahay pop filter oo ka ilaalinaysa codka waxa la yiraahdaa plosives macnaha marka erayada bacda oo kale intood ah qofku markuu ku dhawaaqo sida baabuur oo kale bakaaraha oo kale marka tiraahdo oo kale bacdaas yani jugta ah oo yani oo mikrofonka codka ku dhacayo meesha ugu horeyso waxay u sameeyeen pop filter oo u dhaxeeya afka hore ee mikrofonka iyo membrane-ka waxa la yiraahdo xuubka mikrofonka ee codka ku dhacayo meeshaas oo marka uu ka dhigayso macnaha erayadaasi macnaha ama xarfahaasi sida bacda oo kale intood khafiifinaysa macnaha si uusan si hawo leh yani uusan ugu dhicin mikrofonka tan afraad haddii aan u gudubno oo ah maxaa lagaga baahan yahay mikrofonkan in aad haysato ama aad samayso ayadana ah mid aad iyo aad muhiim u ah sida caadiga ah sidoo qofku
qofka microphone haddii uu haysto waxa looga baahan yahay ugu horeeyo waxa waaye sida mixer ama audio interface inaa haysatid ama recorderada qaar waxay leeyihiin waa aragtay waxay leeyihiin XLR input ay leeyihiin ama mini jack ay leeyihiin marka sida hadda mixerada qaarna waxa ay leeyihiin waa aragteen XLR input ay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin USB-C input iyo audio interface yadana waxay leeyihiin sidoo kale XLR input iyo mixer haddii uu yahay noocan hadda halkan idinkaga soo muuqda oo ah Zoom Botrack B8ka oo hadda aniga aan isticmaalayo muuqaalka sida ka aragtaan asiga ayaa wuxuu wataa kaarkiisa oo waa ku duubi kartaa without computer haddaad rabtid computerkana waa adeegsan kartaa labadaba waa u isticmaali kartaa audio interface ahaan waa u isticmaali kartaa mixer ahaan waa u isticmaali kartaa hadda waxaan u isticmaalayaa sida mixer ahaan oo waxa uu leeyahay kaarkaas ayaa la gelinayaa markaas ayaad waxaa isticmaalaysaa XLR-ka ayaad gelinaysaa dab ayuu leeyahay marka haddii aad isticmaalayso dynamic microphone hadda waxaan isticmaalaynaa microphonekan hadda waxaan idinka hilmaamay inaan idin sheego waa microphone dynamic ah ma ahan condenser microfonada sida aad ogtihiin ama dadka maxaa la yiraahdaa isticmaala waxaa jira laba nooc oo microfonada waxaa jira nooc la yiraahdo condenser iyo nooc la yiraahdo dynamic noocyada dynamic la yiraahdo waxaa loogu talagalay meelaha bulshada ay joogaan aroosyada xafladaha stadiumyada iyo maxaa la yiraahdaa meelaha qudbooyinka laga jeedinayo oo dadka shacbweynaha isugu imaanaa meelaha konsertooyinka buuqaas iyo loogu talagalay waa microphone frequency-gooda aad iyo aad maxaa la yiraahdaa u hooseeyo oo aan qabanaynin maxaa la yiraahdaa loogu talagalay meelahaas yani buuqa iyo maxaa la yiraahdaa iyo ka jira iyo sawaxanka iyo ka jira dhawaaqa zaidka uu ka jiro si ay u yareeyaan maxaa la yiraahdaa marka waxay u baahan yihiin microphone noocaas oo kala xoogaa boost in la siiyo root bot mega sensitivity-giisa wuxuu ka bilaabanayaa -57 marka waxa u baahan tahay badana microphone-kan iyo microphone kale oo lamid ah sida SM7B-ga microphone-ka caanka ah oo aad iyo aad loo adeegsado waxay u baahan yihiin waxa la yiraahdo boost ama cloud lifter waxa la yiraahdo u baahan yihiin xoojiye ah oo siinaya dab badan codka kor u soo qaada gain badan siinaya marka waxa u baahanaysaa waxa la yiraahdo gain ayaa u baahanaysaa gainkaas marka waxa ku heli kartaa laba siyaabood ama inaad soo gadato ama haysato waxa la yiraahdo mixer ama audio interface oo gaaraya 70 ama wixii ka badan adiga 60 iyo above wixii ah ayaa u baahan tahay sida 80 70 90 ilaa iyo 100 macnaha gainkiisa ah si aad u isticmaasho microphone haddii kale microphone codkiisa cod gaaban oo hooseeya ayuu noqonayaa si fiican lagu maqli maayo hadhowtin waxa ku qasbanaanaysaa in aad gainki kor u soo qaado gainka markaa kor u soo wada qaadana ma fiicna sababtoo hadhow waxaad sababaysaa in guux badan uu ku furmo codkii noise badan uu ku furmo taana ma fiicna marka maxaa la rabaa marka waxa u baahanaysaa wax la yiraahdo fatihead wax la yiraahdo oo hadda muuqaalka halka kaga soo muuqdo fatihead ama wax la yiraahdo cloud lifter fatiheadka iyo cloud lifterka waxa ay siinayaan boost ay siinayaan waxa lagu xirayaa inta u dhaxaysa microphone-ka iyo mixer-ka ayaa la gelinayaa markii la geliyo waxa siinaysaa maxaa la yiraahdaa dab ayaa siinaysaa sida condenser microphone-da dabka oo kale ayaa markaas dab u siinaysaa markaas waxa uu ku siinayaa wax la yiraahdo 25 ama 30 gain ah ayuu ku siinayaa markaasna waa isticmaali kartaa adigoodan guux badan aadan ku darin maxaa la yiraahdo ama aadan maxaa la yiraahdo uusan qabanin microphone-ka marka saas daraadeed ayaa loo baahan yahay waxyaabaha qofka loogu baahan inuu ka taxadaro marka microphone-adan kan noocan ah iyo noocyo kale oo aad u tiro badan ayaa jira oo dynamic ah microphone-da dynamic waaye kuwa condenser-ka asaas ma ahan kuwa condenser-ka ah anytime ayaa isticmaali kartaa maxaa yeelay ayaga waxa waaye la meelaha ugu hooseeya ayay kasoo qaban karaan uma baahna marka wax la yiraahdo in la siiyo maxaa la yiraahdaa boost ama wax la yiraahdo cloud lifter ama fatihead wax la yiraahdo in la siiyo marka sida daraadeed microphone-kan waxa kale oo loo baahan yahay qofka inuu ka taxadaro proximity effect wax la yiraahdo proximity effect-ga muxuu yahay marka waa afka marka aad ku hadlayso microphone-ka meesha microphone-ka maxaa la yiraahdaa afkiisa hore iyo afkaaga maxaa la yiraahdaa inta ay isu jiraan badanaa waxaa la sheegaa taaka inay tahay hal taako oo adiga gacantaada ah in ay adiga ugu yaraan u jirto inaadan aad ugu dhawaanin aadna uga fogaanin maadaama uu yahay dynamic microphone dynamic microphone-adu waxay ku xigeen waxa waaye haddii aad ka fog tahay oo afka aad u dhaweynin waxa waa codkii wuxuu noqonayaa cod yani weak ah oo aad iyo daciif u ah oo aan si fiican loo maqlin marka waxaa la rabaa inaad ilaaliso distance-ga macnaha inta aad u jirto microphone-ka tala bixin haddii aan bixiyo oo aan soo yani gabagabeeyo waxaan dhihi lahaa microphone quality-giisa aad iyo aad u fiican waa microphone maxaa la yiraahdaa aad iyo aad qiimo aad iyo aad u raqiis u ah codkiisa cod fiicanna soo saaraya in muddo ahna isticmaali karto dheel ama ciyaarna aan ku halaabaynin ama ku jabaynin ama aan dhibaato macnaha maxaa la yiraahdaa xataa balse haddii aan kaftamo waxaa dhihi kartaa waa qof waa lagu feeri karaa kan waa microphone aad iyo aad u culus intaasna waa kaftan yani qofna lagu feerin marka tala bixinteedu waxa weeye aniga in qofkii awoodo oo podcast ama maxaa la yiraahdaa sameeya waxa la yiraahdo YouTube creator ah oo
dadka muuqaalada youtuberada sameeya kamid ah ama social media ama wixii yani la halmaalo oo lamid ah oo kalintood in uu adeegsado microfonkan waa microfon aad iyo aad u fiican quality fiican waxaan rabaa intaas inaan kusoo gunaanado ama kusoo gabagabeeyo muuqaalkan anigoo Liibaan Caraale ayaa sameeyay oo qaabeeyay waxaan rajaynayaa in uu idin anfici doono dhammaan inta muuqaalkan daawanayso waxaan idinka codsanaynaa in aad channelka subscribe iyo like inoo saartaan aad iyo aad aan idin salaamay